dareen inaan nahay duruus dunida loo baahan yahay, dareen inaan nahay dadaan dalkeenu ka maarmi karin, dareen dookhayga iyo damaco meeshuu dalbado durtaba inaan gaari karo, dareen daayimow allah dunida isku eegaye deeqdiisu inaanay maran. idareen waa barnaamij soo gudbinaya xogta dhabta ah ee dadka jilicsan sida darbijiifka, naafada, danyarta, agoomaha iyo dadka dhimirka wax ka qaba. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال كنا سو دوادا barnaamijkeenii dareen oo toddobaadkan oo marti noogu yahay maxamed muuse jaamac oo cagaha naafaka isla markaana ah in dadaal badan halgan badan nolosha sameeyay. maxamed marka koobaad ku soo dhawo barnaamijka dareen. aad baan ugu dhawaay walaal aadna wada maasantahay xaawo ku dhawaay aad baad u maasantahay maxamed. haddii aad nooga waranto aniga iyo daawadayaasha taariikh nololeedkaaga. walaal waxaan ku dhashay deegaan koonfur galbeed ee gobolka Sanaaga buurta caanka ah ee Surud. halkaas aan ku dhashay sanadkii 1995 waxaa laga keenay 2000 kadib markii aabahay dhintay si aan waxbarasho uga helo magaalada Ceelgaabo. dabadeetna halkaas aniga iyo waxa ka nimi walaashay si aan nolosha magaalada u bilowdo. dabadeetna waxbarashada macaamad baa lagu bilaabay markii hore. dabadeetna quraanka halkaas ka bilaabay. markaan quraanka in badan gaaray baan iskuulka bilaabay. dabadeetna iskuulkii class 5 markaan gaaray ayaan u soo wareegay Hargeysa si aan waxbarashadeeda halka uga sii wato. kadib waxaan imi Hargeysa waxaana aan galay school boarding ku yaala bariga magaalada Hargeysa oo la dhaho Umul Quraan Boarding School. halkaas waxaan dhiganayay muddo 9 bilood ah. kadib habeenada kamid ah ayaan aad u xanuunsaday. 3 cashan boarding ku xanuunsanayay waan soo fasax qaatay Hargeysa animi dhakhtarka la geeyay. 3 cashan ayaan hadana sii xanuunsanayay. kadib waan fadhiistay xanuunkii imka aan la fadhiyo ayaa helay markii hore laakiin waan soconayay 2008 bishii April bay ahayd 24keedii. kadib halkii aan xanuustay dhakhaatiirtii waxay dhaheen meningitis baa ku dhacay. dabadeetna waa in dawadiisa kaliya waxa weeye inuu jimicsi sameeyo mar walba inuu jimicsi sameeyo. kadib 2009 bishii 3 baan handicapta bilaabay. adigu sanad ku dhawaad baan jimicsanayay alxamdulillah sidii hore waan dhaama. markii hore mar baa jirtay xitaa aniga gacanta hadan inaan xoqdo u baahdo oo qof ii xoqayay xitaa marka cunto la siinay afka la igu gulayay. alxamdulillah imka aad baan u fiicanahay. adigu imka markay ahayd 2010 ayaan jeclaaday inaan saxaafadda aan noqdo weliye. waa tahay maxamed aad baad u mahadsantahay inta aanad halkaa ii gaarin. waxaan ku weydiin lahaa dad hore aadii jiraan asxaab ahaydeen ama aad ahaydeen ehel oo naafaha mi jireen? Ceelgaabo kumaan arag anoo yar baan Ceelgaabo ka yimid. dad naafa oo nadki jiray laakiin dad ehelkayga oo naafa amaan arkin. waa tahay aad baad u mahadsantahay. waxbarashada ilaa halkeed ka gaadhay intii aanad naafoobin ka hor? waxaan ka gaadhay horta Ceelgaabo standard 5 baan kaga yimid. kadib Hargeysa markii aan imi boardika dib baa la celiyay waayo Hargeysa waxbarashadeedii hore iyo wax iskeen waayay inta aqoontan haysteen watay. kadib boardikii 4 baa lagu celiyay 2 sano ayaa 6 bilood baa lagu dhiganayay boardinka classkiiba. marka 6 baan ku xanuunsaday anoo standard 6 ah ayaa xanuunkii ku dhacay. aad baad u mahadsantahay. kolkii aad kugu dhacday marxaladan naafanimadu saameyn intee la-eg bay ku yeelatay naftaada iyo noloshaada? wallahi saameyn badan bay ku yeelatay. horta waxaa la yidhi naafada iyo xabaalaha labadaba waa lagu biiraa. wax ilaahay ii qoran oo ahayd habeenkii aan 3-4 urkooyadii ku jiray ayaa ilaahay ii qoray. dabeetana niyadun baan iska jibin. dadkayguna way garab taagnaayeen familygayga haddii walaalaha ay ahaato haddii adeerada ay noqoto. niyadda un baan iska jibin halka laga nool yahayna waa niyadda. aad baad mahadsantahay. dabcan markuu qofku xaalad ka soo baxay xaalad kale galo waxaa ku dhaca caqabado dadka uga yimaado kale familygaaga kale ama asxaabtaadoo kale caqabado intee leeg baa kasoo wajahay habdhaqankoodii ama qaabkii kula dhaqmaya hadday noqoto? asxaab hadday noqoto
horta asxaab badan maba arkin intaan xanuustay waayo handicaptan tegi jiray handicaptana dad aan aniguba aad uga fiicanahay baa jirtay oo aan ka ladanahay asxaab aan la socdo ama aan suuqana uma bixi jirin intii ay ii yimaadeen Cabdicasiis iyo Hiil Naafo iyo Faalmo iyo ayaan u baxbaxo iskuulka bilaabay Adeer Axmed iga caawiyay Axmed Maxamed Cilmi dadana markaa uma bixi jirin family-gana walaalahay baa hayay si fiican bay galab istaageen haddaan waxaan u baahdo adu mar walba ay galab taagnaayeen caqabado sidaas way family-ga kala ma kulmin waa tahay Maxamed dabcan waxaad ii sheegtay inaad jeceshahay muhiimada saxaafadda ilma ay kugu dhalatay inaad saxaafadda jeclaato waxay ahayd 2009 dhamaadkeedii horta idaacaddan dhageysan jiray waayo idaacadda mar walba waan dhageysan jiray waayo waan heshan jiray markaan saliidda iska jiifay ay idaacaddii soo gashay maca eedada maca xayeysiiska wax walba waan dhageysan jiray waayo dee waqtiga ay dhaafinaysa halkaan wax kale ku fikiri lahaa ama aan isla sheekaysan lahaa idaacadda ayaa weheli ahayd dadana niyadeedunba aan iska weydiiyay ka waran hadda nimanka halkaa ku jira aadna ka mid noqon lahayd dee weliya noqon lahayd dadana markaan jimicsaday baan rikoorkan ka dhageysan jiray ayaa canjilada yaryar oo heeso ku jiraan ba intaan baabi'iyo ayaan codkayga ku tijaabin jiray jiraayadkana waan akhrin jiray maalmihii dambe baan idaacad yar baan sidii idaacad yar dad magac ula baxdid oo samaysatid idaacad radio Gold Channel ula baxay idaacadayda yari imka waa ka guulayo imka computerkan ku duuba waxo markii hore radio-ga geel baan ku duubi jiray dad badan baa igu niyo sidee baad ugu duubtay oo ka dhib badan tahay imka kan casriga audition kan ku duuba dabadeetana radio Gold Channel waxay ahayd idaacad yaro markaan barnaamijyo iyo heeso iyo dadkaan u soo deeya way taalaawan in tusi kara in dhageysin kara Maxamed imka waxaad gacanta ku haysaa waa record ka baxay codka xilma doobtay walaal codkan waa codkii iigu horeeyay aan duubo oo idaacadda barnaamijka cajiib baan ku soo qaatay marka weyn dhageysin doona marka idaacad baad samaysatay ad recordkan ku dhex duubtay cajilad dabeetna aad ka dhiganayso idaacadda caadiga ahayd bulshada soo gudbinaysa sax waan ku duubo idaacadda bal haday niiro dhageysiyo xidhiidhay haddaynu intaasi kusoo dhaafno barnaamijkeenii xogogaal halka idin kala socoteen aad ka dhageysanayseena waa radio Gold Channel weli waxaynu ku guda jirnaa qaybaha kala duwan ee idaacaddeena iminkii haatanna waxaynu ku soo maqan xubinteeni cajiib kulanti waxaan oo wanaagsan dhammaanba dadka hawada nagala xidhiidho kuna soo dhawaada barnaamijkeeni cajiib toddobaadkana waxaynu ku soo qaadan doonaa qiso yaab leh ninkii miskiinka garaacay muxuu ku dambeeyay waxay ahayd gabadh dhowrsoon waxayna markasta ilaahay markaa waa sheeko tacaala baryi jirtay miskiinka garaacay maxamed su'aaladan ku weydiiyo halkan markaad idaacadda gashay furitaanka waxa ka dambeeyay muusig aad dhexgelisay sidoo ku suurta gashay inaad muusiga aad dhexgeliso muusiga walaale markaan barnaamijka duubayo ayaan mobilka igu jiraa dabadeetana markaan u baahanahay meel muusig la dhexgeliyo ayaan mobilka ka daarayaa aad baad mahadsan tahay dabcan qofku markuu dooranayo waxbaa ku kalifa choice maxaa kuu kalifay baan oran karnaa Maxamed inaad noqoto inaad jeclaato saxaafadda wallahi horta duruuf igu kaliftay oo aan oran karo saxaafadda ku biir oo wax igu bushkareynaya oo ilaahiyana baan oran karaa oranaya saxaafadda kulli halkaaga mustaqbalkaaga halka umar saxaafadda oo adigu wuxuun bay jeclaysiiyay hibo ilaahay siiyay aad baad mahadsan tahay aqoonta sidoo kale aad bay farad badan tahay ma jeclahay inaad qaybo kale ku darsato aqoonta waan jeclahay inaan wax barto inaan naftayda iyo dadkayga iyo dalkayga ku anfaco waxbarashadeedana waan jeclahay dee inkastoo caqabada waxbarashada iga hortaagan jiraan hadday tahay ciddii waxbarasho iga bixin lahayd hadday tahay gaadiidkii hadday tahay iskuulkii oo ay igu adagtay inaan iskuullada qaar fadhiisto oo iskuulkan doonayo ee Hargeysa ku yaala ay igu adagtay inaan u galo galaaska dhex fadhiisto markaas sabab ayaad oran kartaa caqabada ka hortaagan maxaad noogu qeexi karaysaa kalo wala way dhici karaan caqabado badan ay jiraan taad sheegtay iminka dad doonaysa inaad suuqi tagto iskuul dabcan socodkii iyo marka laga yimaado caqabad kala jirto oo ka soo wajahaysa iskuulka qudhiisa caqabadaha dadka dhan naafada waan kala mid ahay
waayo dalkeena markii dhismayaasha la dhisayay qorshahaba laguma darin qayb dhan oo bulshada ka mid ah in meesha dee la keeno oo ah naafadii. markay shirkadahani xayeysiinayaan waxay dhahan waxaad ka heli doontaan adeeg ha qabtiran meeshayada, waana beentoodee waayo jaranjaltii qofkii naafada ma keli karo. tusaale ahaan aniga iskuulkii ugu jeclaa aan doonayay inaan barto saxaafadda wuxuu ahaa siidam iyo aydam. dee waxay ii diiday inaan iyadoo laga bixinayo aan helayo cid iga bixisa oo tagsigii helayo waxaa ii diiday jaranjalta ii diiday. markaa inay qorshaha ku darsadaan dadkeenu dadka naafada inay u sameeyaan oo hadday imika sameynayaan u sameeyaan, haddaanay hore ugu sameyn ay dumiyaan oo jaranjal dadka naafada kori karaan ay sameeyaan. waa tahay aad baad umahadsantahay maxamed. marka dabcan qofku uu wax sameeyo tusaale ahaan iminka dad aqoontii saxaafadda aad hesho asaasigii aad soo dhisto waxaad noqon doontaa qof yacni wax bedeli doona. laakiin su-aashan ku weydiinaya waxay tahay maxamed, weli ma ku suurta gashay inaad tagto iskuul ama aad goobihii saxaafadda lagu baranaya jaanis u hesho? haa, markii aan kii hore waayey oo igu dhahan waxaan u tegay aydam oo aan u tagnay aniyo cabdicasiis iyo faadumo iyo asxaabteeda ka mid ah ayaan u tagnay. dabeetana waxay dhaheen jaranjalta ma kori karo, dabeetana keligii aan meel ugu dhiganaa laakiin waa in la kordhiyo fiiga oo lacag intii 10 laabkeed ka badan la bixiyo, halka qofka kale lagu dhigay $10 aniga 70 laga qaado. oo dee 10kan ayaaba dad muxsiniin iga bixiyeen markii hore anigu ma haysan. haddii markii dambena waxaa layidhi $70 waa inaad bixisid. kadib iminka adu markii sidaa laygu yidhi xamaan iyo jabin ilaahay baan ka rajeeyay inuu meel kale aan saxaafadda ka galo si aan shahaadadiina u helo. horta anigu markii hore spaceka waan ka dhisnaa, itigiska la raacaya iyo qodobadana aan sii barto anshaxa saxaafadda looga baahan yahay ninka weliya ah. kadib allahu mustacaan waan waxaan soo helay wakaaladda saxaafadda Somaliland, macallin aad u fiican Cabdishakuur la dhaho. laftiisa waa dabaq, laakiin mid buu ii sameeyey meel yaroo ku xigta iskuulka oo bakhaara ayuu xiisadayda igu siiya igu dhigaa. markii dhaweedna ballanta ila lahaydeen markaasaan baka imi aan soo dhigtay iskuulkii. wahagaag maxamed aad baad umahadsan tahay. macallimiintaana runtii wayna hambalyeynaa ku gacan qabtay. maxaad baaq u soo jeedinaysaa bulshada hadday noqoto caqabadaha ku haysta aada uga faa'iidaysanaysaa barnaamijka ay dareen? caqabada waxaan uga faa'iidaysanayaa walaale bulshadeena. horta waxaan oranayaa dadkan naafada ah kumay dhalan qofka naafada ilaahay godobka muu gelin, waayo qofkan ilaahay baa u qoray inuu naafo noqdo. adigu waa inaad maskaxda ku haysaa qofkaagan caadiga inaad naafada ku biiri karto, waayo adoo halkaa xaafadaada kasii qadeeyey ama shaqatiga iyo gaari ku jeeri kara waxaaba lagu yidhi maskaxda si kale ku noqoto ma socon kartid. marka hadday noqoto dadka ganacsadayaasha, hadday noqoto dadka lacagta leh, waxaan lahaa horta dadka naafada caawiya. marka labaadna waa in cid walba kuusoo gasho. waxaan bilaabayaa barnaamij ah cid walba ha kuusoo gasho oo page aan facebookayga ku leeyahay ayaan rajeynaya inaan dhawaan soo qoro barnaamij la dhaho cid walba ha kuusoo gasho oo ah marka qofkii naafada waa inuu hadduu mobilkaa iibsanayo dabaqa sare ama ka hoose mid walba kuugu iman karo. hadduu doonayo inuu cisbitaal tago waa inuu meel walba tegi karo. marka bulshada waxaan oranayaa dareenkiina kusoo jeediya dadka naafada ah. aad baad umahadsan tahay. fariinta ugu dambeysa jecelahay hadii jirto cid si gaara wax uga codsanayso, hadday noqoto dowladda oo kale, hadday noqoto dadka Soomaaliyeed oo kale, maxamed ahaan maxaad bulshada ku daawanaysaa aad la wadaagi lahayd? horta bulshada Soomaali meel ay joogaan waan salaamaya. waxa kaloon codsigaygu ku wajahan yahay meeshaan jecelahay waa wasaaradda warfaafinta Somaliland, waayo Hargeysaan jooga. waxaan jecelahay insha Allah marka waxbarashada soo dhameeyo oo aan soo bogo inay dee haddii aan shaqadayda lay qoro oo lay fududayo si gaara waxaan ugu dirayaa wasiirka ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wasiirka warfaafinta Cadaani iyo Shukri Xariir ayaan codsi u diranayaa inay iga caawiyaan inaan wasaaradda warfaafinta aan jecelahay kusoo biiro. wahagaag daawadayaal intaas waxaanu kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii dareen oo maanta marti noogu ahaa maxamed muuse jaamac oo ka mid ah dadka naafada ah. in badan aad dhegeysanayseen dadaalka badan iyo hawsha uu sameeyey. waa tabintii aniga waxaa u jaamac Cabdiyo, farsamadii Xamse iyo kaaliyaashaada waxaan igaga tegaynaa intaas iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bulshooy i dareen
idareen waxaanahay dareen idareen oo ila dareen. Barnaamijku waxa uu soo dhaweynayaa cid kasta oo gacan ka geysanaysa wax u qabashada iyo tabantaabinta dadka jilicsan.